shirkan oo lagaga hadlayay sidii loo gaarsiin lahaa maamul daadejinta degmooyinka hoos yimaada degmada Berbera ayaa maanta lagu qabtay hoteelka Maasoor ee magaalada Berbera. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha laamaha dawladda ee gobolka Saaxil iyo hay'adaha dawladda hoose kala shaqeeya horumarinta degmooyinka. horeyntiba shirkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee magaalada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde, maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo barasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan waxaanay ku dheeraadeen waa ogtihiin dhamaantiin mudanayaal iyo marwooyin waxaanu ku jirnaa dhamaadkii 2019 waxaana fooda inagu soo haya bilowgii 2020 waa waqtiga ugu fiicnaa in wax iska weydiin lahayn horumarinta degmadeena iyo utashigeeda. waxaanu sagooteena sanad dhamaaday oo aynu mashaariicdiisa gabagabeynayno iyo waxaanu fooda gelinay sanad cusub. dhamaanteen inta halka fadhidaana waa intii arintan ku shaqada lahayd wax isweydiin lahayd xisaabtami lahayd hor u socon lahayd. balantan waxa weeyaan dhamaanteen inaynu Berbera horumarino, inaynu Berbera iyo degmooyinka iyada hoos yimaada ka shaqeyno, gacmo furan iyo daacadnimo iyo wadar ku shaqeyno. Soomaalida waxa ku mahmaahdaa gamca wada jir bay ku gooyaan. hawshan aynu halkan maanta dhamaanteen isugu wada nimi dhamaanteen haddaynu ka socono hay'adaha iyo haddaynu ka socono dawladda dhexe iyo haddaynu ka socono dawladda hoose dawladaha hoose iyo haddaynu ka socono local NGO-gaba dhamaanteen waxaynu halkan isugu nimi inaynu u adeegno bulshadeena aynu mas'uul ka wada nahay. sidaa awgeed haddii in badan hore aynu isgarbayaaci jirnay oo wixii si kan fuuli jireen waxay dawladdu qaatay siyaasadda maamul daadejinta oo ah in dhammaan inta la isku soo xooriyo meel qorshe loo sameeyo laga shaqeeyo. waxaanu wada waayaara ku nahay maayarada waxaan ku hadalaa Siciile iyo Xagal iyo Mandheera iyo Bulaxaar. waxaanu wax badan markhaati ka nahay inta hay'adinoo qabato ama waa NGO-yar intuu qadaas ku soo qaato intuu meel looga qotobin in iska kan dhaqaaqo isagoo marka hore nagala tashanin waxa la qabanayaa ma yahay wixii saxda ah ku habboonaa sida loo qaban lahaa. maanta dawladdu inoo socon doona shirku waa la wada hadli doonaa, cid kasta halkan fadhida way hadli doontaa, waxaanay ka hadli doontaa qorshaha ay ka leedahay gobolka iyo degmada uu mas'uulka ka yahay. waxa laga rabaa maayaradu anagu markaan ku horeynaanu sheegno waxaanu qabanayno noo qorshaysan ayaa dabadeedna maayarkii Mandheere hadlaya dabadeedna wuxuu oranaya sanadka 2020 anaga waxyaalaha aanu filayno ama halala ama la waayo waxyaalahan filayno waxaanu ka filaynaa waxa marka haddii waxbarashada khuseysay waxbarashadii baynu qaybteeda raacinayna, haddii caafimaadka khuseysay caafimaadkii baynu raacinayna, haddii biyaha khuseysay biyihii baynu raacinayna. degmooyinka kulley qolo walba waxa laga yaabaa in waxyaabo badan soo galaan ama dakhli iyo haba iska yaraade kooban ha noqdo ama hay'ada maxaa ku dhahday wax siiyaha noqdaan ama wax kale oo miisaaniyada ugu jiro dawladda dhexe soo siisaba ha noqoto. wixii waa inaanay si aanay mashaariicdi laftoodu madaxa iskula gelin, waa in la kala jaangooyaa oo la arkaa qolo kasta baahideedii ay noqoto. doodani waa dood aad iyo aad u fiican runtii aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayo maxaan ku dhahday degmada Berbera oo had iyo jeer ku mashquulsan goobaha hoos yimaada degmooyinka kale hoos yimaada aan awoodi kareynin in maxaan ku dhahday ay maxaan ku iyaguna dakhli soo galin inay gacanta ku hayaan. waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Badda Cas magaalada Berbera.